saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan, saddexda ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan. saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda. saddexda ummaduhu way ku dhismaan. ninkii doonay inuu ummad dhiso, ninkii doonay qoys inuu dhiso, ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa. waa in laga helaa ammaano, waa in laga helaa waxa laguu dhiibay. ama reerkaaga ha noqoto, ila nin walba reerkiisa waa ka mas-uul, ama meherad qof leeyahay ha noqoto, ama mas-uuliyad hoose ha noqoto, ama mas-uuliyad ummadeed ha noqotee wixii laguu dhiibay waa in sideeda laguugu yimaadaa, waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya. ammaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku. sidq dadka run unu sheeg, weligaa been ha sheegin. oo nebigeenna calayhi salaatu wassalaam saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah, ninka mu'minku fulo ma noqon kara.